السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو dhawaada asxaabi channelkeena fursad gaab muuqaalkan gaaban waxaan ku sharxi doonaa sida loo sameeyo keyd kuri ama keyd kuris blogga loogu daro. Keyd kuriska waa waaxaha uu ka kooban yahay blogga post-yaashu waxay hoos tagaan keyd kuri marka aad samaysid waxaad tagaysaa posts meeshay ku qoran tahay kadib keyd kuris meesha ku dhufo click ku sii meeshay keyd kuris ku qoran tahay kadib waxa ku soo baxayo shaashadan post-ya keyd kuriskan hadda waa keyd kuriskii aan hore u sameeyay overflowment blogging post-yaashidu keyd kuriska ay hoos imaan lahaayeen waaye mid cusub sabab inaad samaysid marka rabtid name-ka meeshay ku qoran tahay waxa gelinay keyd kuriga aad rabtid name-kiisa gelinay had tusaale ahaan keyd kuri hadda blogga haduu ka hadlayo cunto post-yaashaada waxay hoos imaan karaan keyd kuriska sida fast foodska iyo waxay kale hoos imaan karaan dietka waxyaabo badan oo kala bixi karaan fast foodkaas marka keyd kuri weyn waaye asaga ciwaano kale u sii baxaya dhooti oo post-yaal badan noqonaya marka rabtid inaad samaysid meeshaas oo keyd kuriga waxaa gelinaysaa name-ka waxaa gelinay keyd kuriga magaciisa gelinay kadib hoos aad tagay add new keyd kuri taabanay lag way ku galay kadibna mid kale markaad samaysid inaad rabtid sidoo kale waa qoree add new haddana marka saas samaysid post-yaashaada see ugu dari kartaa marka hadda kuwan waa samaysay post-yaasha markaa rabtid inaad ku dartid waxaad tagaysaa all posts aad tagay all posts markaad tagtid kadib postiga aad rabtid ama postiga markaad samaynaysid kasoo qaad postiga aad samaynaysid postiga ku dhufanay kadib meesha stinkiska hoos u bax waxaa raadisaa meel ay ku qoran tahay keyd kuriskaas fur kadib midkaa rabtid ku dar sax le saar sax markaad saartid si automatic ayaa kugu darsami doonaan kadibna waxaad dhahaysaa update kadibna ka bax intaas ayuu ku egyahay muuqaalkeena maanta ha ilaawin hadduu muuqaalku ku qanciyay inaad like saarto subscribe na saar haddii aad ku cusub tahay channelkeena waa mahadsan tahay.